السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. degmada Shangani ee gobolka Banaadir maanta waxaa ka dhacday arrin cayb ah oo fadeexad ah xilli la sheegay in dadka ay isku soo baxaan oo ay qaataan kaararka isdiiwaangelinta ah si doorashada dhacaysa oo weliba la isku khilaafsan yahay ay uga qayb qaataan. Ma xumo dadka in ay qaataan kaararkaasi ay isdiiwaangeliyaan, ha yeeshee waxaa xun wixii maanta dhacay oo u baahan in dabagal iyo baaris lagu sameeyo, tallaabana looga qaado cidda ay ku caddaato arrintaasi. Marka hore, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa noqday qofkii ugu horreeyay oo dadka indhahooda tusiyay in uu qaatay ama uu isdiiwaangeliyey si shacabka Soomaaliyeed loo baraarujiyo. Duqa Muqdisho intaasi kadib waxaa la sheegay in goobta uu ka tagay oo shaqooyinkiisii kale uu raacday. Ha yeeshee waxaa degmada Shangani ee gobolka Banaadir ka dhacday arrin cayb ah, isla markaana dadka kale ee ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir ay saameyn ku yeelan karto, lagana yaabo in ay baajiso waxa dowladda federaalka Soomaaliya ay wado ee ah dadka inay isdiiwaangeliyaan. Hadda Shangani waxaa ku xiga Shibis, Wardhigley, Boondere iyo kuwo kale. Ha yeeshee wixii maanta dhacay marka dadkay ogaadaan waxaa laga yaabaa inay dib u gurtaan oo aysan aaminin dadka ka shaqeynaya howlahan. Haddii aan gunta usii dhaadhacno, degmada Shangani ee gobolka Banaadir ceebta ugu horreysa ee maanta ka dhacday waxay tahay in qaar ka mid ah dadkii ka qaybgalayay arrinta lagu dhawaaqay ee isdiiwaangelinta ah in la handaday. Qaarkood hadallo aan wanaagsaneyn oo aan u wanaagsaneyn dhagaha qofka muxtaramka ah ama u baahan in la ixtiraamo. Sidoo kale waxaa ka dhacday in soo dhaweyn aad u wanaagsan dadka aan loo sameynin, in sidii ka dhaceysay xarumaha dowladda ee loo doonto dukumiintiyada oo kale in ay dhacday oo qof subaxdii hore yimid qof kale laga hormarsiinayay. Sidoo kale waxaan ogaanay in ay dhacday in qaar ka mid ah dhalinyarada doonayay in barnaamijkan ay ka qayb qaataan oo faraxsanaa in qaarkood la jirdilay, qaarkood la handaday, qaarkoodna la liif garaacay oo caddeymahooda iyo dukumiintiyadooda ay yihiin kuwa la heli karo haddii dowladda federaalka gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir iyo taliyaha ciidanka booliiska arrintan wax ay ka qabanayaan. Haddaba qof subaxdii hore gurigiisii ka soo baxay asigoo faraxsan, amarkii dowladda qaatay, adeecay, haddana loogu abaalguday waxa maanta ka dhacay degmada Shangani ee gobolka Banaadir waa arrin quus ah oo quus gelinaysa shacabka kale ee ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir. Sidoo kale maadaama waqti badan ay qaadanayso arrinta, waxaan goobta lagu diyaarin waxyaabaha aasaasiga ah oo ay ka mid tahay gaadiidka degdega ah ee ambulasta oo haddii xaalad ay dhacdo qofka loogu gurman lahaa. Waxaa sidoo kale goobta aanan oolin biyaha gacanta lagu qaato ee yaryar si dadka haddii ay haraadaan ama ay oomaan u isticmaalaan. Waxaa sidoo kale goobta oolin kuraas tiro badan oo dadka duqowda ah ama waayeelka ah ama kuwa baahiyaha gaarka ah qaba ay ku fadhiisan karaan. Waxaa sidoo kale goobta lagu diyaarin dad ka shaqeeya ama si gaar ah ugu shaqeeya dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Intaas oo dhan waa muhiim marka in lagula xisaabtamo dadka arrintan ku shaqada lahaa ee dowladdu ay sheegtay in ay hoggaan u yihiin. Sababtoo ah waxaa meesha ka dhacday mas'uuliyad darro, waxayna u baahan tahay in la helo cid arrintaasi lagula xisaabtamo. Haddii muuqaalkan uu ku soo gaaro, sii gudbi, like garee, share garee oo la sii wadaag asxaabta. Sidoo kale ma ka mid ahee dadka maanta iska diiwaangeliyay degmada Shangani ee gobolka Banaadir.